عاوة حيواناتية أبو حمزة محمد شعب إيه رقم إذا عن سكيبو حمزة وحوه كشك دقمدا لاسكيب مقالات عبور ترجمته هاكم يسلامهم يوحوين حمزة وحوه العام قرآن كترين ويقولون شيء تسبب وصل يوجد وحوه كترين إسلام دقمدا تسبب وصل وحوه كترين وعلى تسبب سرنك عيولا شارعات أبدا أيوه قالي لو يكون يسلامهم كي وحنا تكويدا لويا عن لوت كاسيريس وبرتو مراكيبتا يوحنا مناسبات كيو حمسي مركب شمعات الحيوان من الوحى وراعي مركب الأبواب وحنا مركب كيفني هاي فيروس وحنا مركب الجنس ويكادي كيفو بيسا أي الجنس ويكادي حمسي سوبر وراء ولا أما أقوم بهذا هو أقوم كذا بسرعة أما أي سوالف تغير بفرق أفعله يعني بفرق حمسه أوله ودوسيته سنضرب كهربائية هديك السنة ولا ما سوق حمسه ومسيحا سيريا مسؤولين حمسه هذا يسوله برنامج يوم ممكن ولا بسم الله الرحمن الرحيم كله إن بدنا بونيا يوح بدنا الله يبارك ترى عاو إلى يوم هذا هل مدرسة قرة بدنا نسوي كان مركب حتى وحنا هذا علمنا أن هذه آخر شيء قرآن بربرا وسوق بقابي مدرسة قيمة بدنا نسوي نمد وحكوا هنا المدن مرتدى كسوق يمكن برنامج كينن عاوة وحنو عاوة هل تنكو هاينا برنامج الله يقعنا ساينسكا يسودانتا ساينسكا يسودانتا معها برنامج هورا اللوغا حالي أما إن بدن وحلقو قرأي أما مارتي عيد بدني أي لفكرين برنامج كان مددو سنة أيام ديارني هذه الشيء على مرة تفسير كتيرني أيام معلمين كقارنا وحي سودانتي أبي قارنا تتنا هاد بشرح أودي أيو قارنا يا فنان هبل باسد علىها مرة أسان كفكر بالين عن صوت ورنو سيد سودانتي كهيا أسان يتم كعاوة إن البرنامج كان عاوة مرة أنا كسوف عندكنو marka hore waxaynu isku daynaa bal inaynu sharaxno labada erey ee saynis iyo Suudaan waxa ay kala yihiin iyo farqiga u dhaxeeya sayniska aynu ku dambeynaa Suudaanta waxa la yiraahdaa waa erey reer guuraagu u isticmaalaan naqa cusubka iyo dubaadka soo baxa marka uu roobku doo waxa weeyaan deegaamada lagu kala duwan yahay qolaba si bay u yaqaanaan oo maaragtay ereygu macno ugu fadhiya beeralaydu waxa la yiraahdaa waa erey bay yiraahdaan ay beeralaydu u isticmaalaan haruurka badarka iyo sabuulka marka la tumo marka dixinta iyo tirida loo kala saaro inta dixinka bay u yaqaanaan Suudaan haddii la isku soo xooriyo Suudaantu waxa uu noqonayaa hadal murti iyo macno badan xambaarsan ayuu noqonayaa saynis haddii aynu nimaadno saynisku waxa la yiraahdaa waa maadooyin gaar ah oo la barto kuwaas oo loo adeegsado hab cilmiyeysan يعني ساينس مرة لقى هالليو وحياله بدن بالقى هالليا مثلا دام فيزيكس أما بيولوجي أما كيمستري وحيالها صوب لن وحلا يسكول هذا ساينس مركا وعلم النوع عاصة نتبصير كبرنا ساينس يقوليس waxaan ku bilaabaynaa
qaybta biology-ga barnaamijkeena in badan baa biology dugsiyo sare laydinku dhigay in badan baa maaragtay wallahi isku dayna markaa biology-gii iyo suugaantii ama afkeennii hooyo ee aynu barannay in aynu ogaano meelaha ay relationshipka ama xiriirka ka leeyihiin matalan waxaynu soo qaadanaynaa waxaa loo yaqaano characteristics of living things oo loo yaqaano astaamaha ama dabeecadaha noolaha nool living thingska oo aad ku soo barateen dugsiyadii sare hadday tahay form 1 iyo form 3 waxaynu ugu horreysiinaa bal breathing systemka habka neefsashada ayaynu ugu horreysiinaynaa qoladani marka la qeexayo sida scientifica loo qeexayo breathing systemka waxaa la yidhaahdaa what is the process of taking air into your lungs and releasing it waa habka uu u qaato sanbabadeennu ay u qaataan hawada oxygen-ta una soo daayaan carbon dioxide haddaba soomaalidu halkaa iyo gabyaadu muxuu ka yidhi ayaynu balheelaynaa nin la odhan jiray cabdi aadan qays cabdiqays in badanna aad maqasheen ayaa waxa uu leeyahay maase tidhaahdaa ama hees ay ku wada luuqeeyaan aamine cabdilaahi iyo isla cabdiqays laftiisu oo tidhaahda dad wuxuu ku nadiyahay neecawda weeye ma noolaada ruuxay iska taagta neeftoy war miyaana breathing system dhammaystiran ahayn ma noolaada ruuxay iska taagta neeftoya taasi waxay kuu sheegaysaa markaa aqoontii reer galbeedku inoo keeneen ee aynu dugsiyada ku baranaynay iyo suugaanteennu inay isleeyihiin oo relationship iyo xidhiir ka dhexeeyo haddii aan ku sii socdo waxa weeyaan waxa loo yaqaano reproduction system ama habdhiskii taranka waxay ku macneeyeen markaa iyagu waxay leeyihin waa the process of producing babies or young animals and plants waa habka loo soo saaro awlaad cusub ha noqoto dhir ha noqoto bini-aadan nidaamkaasaa loo yaqaanaa ama habkaasaa loo yaqaanaa reproduction system soomaalidu maxay ka yidhaahdeen waayo weli comparison baynu samaynaynaa oo haddii waxaasi uu sidaa ku noqday biologygii suugaantii maxaa laga yidhi baynu marba yaro janjeerinaa oday la odhan jiray xaaji aadan axmed afqallo oo gabyaa ahaayo in badan aad taqaaneen ayaa wuxuu sameeyey ama uu tiriyey gabay gabaygaasoo uu kaga hadlaayo qofka waalidku marka uu xilkiisa dhammaysto ee uu dhinto in shayga ku xidha ee soo kacaya uu yahay ubadkii ay ku tabceen si ay uga dhaxlaan shaqooyinkii nidaamkii iyo howlihii kale ee bulshee ku beegnaa qof walba markaa xaaji aadan wuxuuna leeyahay hadduu geed engedhe xaabadaa lagu idlaystaay mid yar oo iniintiis ahbaa soo awaalbaxa ee isagaa anfaaciga hadhkiyo ooda kaafiye ee reerkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda hadhabaa tabco aayatiin hela war miyaanaysa ahayn waxa weeyaan kaa hore markuu ku dhaafo ciddan dambee soo kacday ayaa meeshii qabsanaysa oo la wareegaysa xilkii waa habkii taranka uun iyo tadawurkii bini-aadanka marka halkaa aynu marayno bal waxaan ku yaro weecanaynaa embryologyga cilmiga la ydhaa ama aynu tusaale yar ka bixinaynaa embryologygu waa cilmiga lagu barto uu jirta bini-aadanka iyo maraaxilka uu soo maro ilmaha yare ilaahay ku abuuro riximka hooyada
إلهي القرآن كوي نور الشيء إن مرحلة كل دوان عندوف تبعتنا وصل ديار تبعتنا لما يسترن يا وطلب ميل سوكاري حالة داو حكى هذلي نلورن شريعة أو علي أو كبياها وحول مركي هرا عندوف بانها عانا أو تلي مركي حقي عسان ديد أهو عدية تشيريه شيء مركي حقي علاشي هوين باند حرراي واي مركاو نبوش هذي سيدي أكو سماي سروكو إرسينيا إلا ما يحير كنولشي سدنبه مركي حقي عويس باند شو عجل لي بحيه مركي حقي عليس هو يدي عددها هنداش يعني markii la barbaarinayay ee la hayeeyay markii xigayna cudkan casho caawiya ahaaday halkaas uu marinaya noloshii iyo life cycle-kii bil aadanka ee uu la jaan qaaday markuu ku soo biiray ayuu waqti ka sii wadaya habdhista halka hadda kaga baxno nutrition system-ka ama habka ay bil aadanku u qaataan cuntada ama oonta si ay ugu noolaadaan energy-na ay uga helaan ay activity ku qabtaan ay ku xirsiinayna markaa wuxuu waranayaa markaa nutrition system is the process of taking in and using food to give it energy process-ka aynu u qaadanayno cuntada ee aynu u helayno energy-ga ayaa loo yaqaanaa nutrition system wuxuu tusaale ka dhigay تحيرو الله أيه وحولي سمرة إذا كصورتي أنفعاد اللقوتية حتى صورت الروح عنين إفتى تمر ما يشين يعني قفك تمر ما يهلا يهدان وحقودن يدي إلا دور ما سبريور كلمة إنه وحالات إن أتفا مرنا أير وحولنا مرنا أير وعطلة صورنا ما ترتي وحويا قف شقينا oo active oo aan wax cunayn ma jiro waxaan ku xigsiinaynaa dareemada loo yaqaan sensitivity-ga waa dareenka aan wax ku dareeno habista dareen wadayaasha hadday tahay taabashada hadday tahay urta hadday tahay maqalka hadday tahay aragga hadday tahay waxaas oo dhan waa shanta sensitivity hab ee wax loo dareemo oo ka mida markaa characteristics of living things oo aynu weli ku guda jirno waxaan ugu horreysiinaynaa sense of eyes dareenka aragga ama aynu wax ku dheehanno wuxuu leeyahay waa is the ability to interrupt the surrounding environment using light invisible spectrum reflected by the object in the environment يعني habka aynu wax ku arkayno reflection-ka ayuu markaa inoo qeexaya yaa ka hadlay markaa dareenka aragga had iyo jeeraale waxaynu aragnaa iyadoo suugaanta iyo heesaha la tirinaayo oo inanta wax la arkaayo lagu mataalayo oo la leeyahay waxaasad hiblaayo la mid nin Faysal Umar Mushtaaq loo oran jiray baa wuxuu yiri sidii cilku hooray meel qasab loo cadceedi u soo baxdaa tahay waa humaag la dheehanayo la arkayo waa sense of eye wax aynu arkayno ayuu Faysal Umar Mushtaaq inanta ku amaanay ma sakalo heema la yiraahdo waxa tiraahdaa sidii hidishiya caleenta harweyn hirdood liyatain hadoodilano cilaan hamashlihi hareer kageeyal midaan halacsiga hawaysanaya waxaasoo dhan waxay ka hadlayaan dareenkii aragga ama qofka bila aadamkii uu wax ku arkayay dareenka maqalka oo loo yaqaano dareenka labaada sense of hearing wuxuu leeyahay waa awoodda aynu ku maqalno jabaqda iyadoo ay dhagaheena soo gaarayaan gariir
gariirkaas oo ay maskaxdeennu soo macnayso ya ayaa loo yaqaana markaa dareenka maqalka. ninbaa hala dhalay oo kareeba oo dunuunucayo nirkihii laga kaxeeyey ayuu wuxuu ku masaalayaa inuu sida geelaasi u jecel yahay dunuunuca ilmaha laga kaxeeyey inuu maqalka inanta uu jecel yahay saasoo kale ku yahay. wuxuu ihi sidii hala dhalay kareebyo hor loo nirguhu horiyos ku hoojinayaan markaad hoh tidhaa naftaa hollatee midaan hadalkeed hawaysanaya. inanta maqalkeedii iyo hadalkeedii buu jeclaysanayaa marka waa sense of hearing. wuxuu inoogu xilsiiyey dareenka dhadhan. weli 5tii dareen ee ayaan ku guda jirnaa sensitivity. wuxuu odhanayaa dareenka dhadhanku dareenka dhadhanka waxaanu soo qaadanaynaa oo ama ay ku macnaynayaan. wuxuu leeyahy waa awoodda uu carabkeennu kaga falceliyo waxa uu dhadhamiyey macaan iyo qadhaadh waxa uu doono ha noqdo carabkeennaasi waxa uu dhadhamiyo waxa inoo sheegayaa waa carabkeenna weeye. nin cumar Australia la odhan jiro geela aada u dhaqan jiray oo geela jeclaa baa gabay tiriyey uu kaga hadlayo geela caanihiisa oo uu leeyahay caanaha geelaygu dhadhamadiisu sida caynkaa iyo caynkaas ayay tahay. wuxuu yidhi dhool caano laga soo lisoo yaro dhanaanaaday waa haashii magaceedii. dhool caano laga soo lisoo yaro dhanaanaaday nin dhadhamiye wuu garanayaa dhulay qaboojaane dhallaannimo qodci kugumudaa kaaga soo dhaca. doctor waa markaa dhadhankii muxuu macaansaday caanihiisaa uu dhadhamiyey markaa. aan hore ugu soconnay waxaa inoogu xidha dareenka urta ama aynu wax ku oranno waa awoodda aynu ku ogaano walaxda urteeda inagoo adeegsanayna sankeenna markaa. dareenkii urta markaa wuxuu yidhi tusaale u soo qaatay sidii hadig iyo hibaaqa dhirto. hibaaqu waa geed udgoon oo markaa ur udgoon leh. hayay saxansaxa hareer u sidiyo hadba dabayl baa qaadaysoo dhan u kaxaynaysa. hibaaqa udgoon hareer kaga yaal midaan habowgeed hawaysanaya. haddaba saddexdaa dareenaynu soo marnay waxaa jira hal abuuro si farshaxan leh uga maansooday oo isku keenay. qofka hal abuurkaa ee wax alifayaa waxaasoo dhan buu ku xisaabtamayaa. waxaasoo dhan buu ku xisaabtamayaa. marka waxa uu leeyahay taariikh wuxuu yidhaahdaa waxna waan arkayaa orna waan maqlayaa waxna way urayaan. 3 dareen buu hal mar isu kaa raaciyey soo maarti. waxna waan arkayaa orna waan maqlayaa waxna way urayaan. waa 3 dareen farshaxanka halabuurka ayay ka mid tahay. cali dhooxoo isna nin abaandullahan jiro dee geela dhaca ayaa reerkooda beriga ku abaabulayay oo lahaa geela aynu reer hebel ka soo dhacno aynu soo ceshanno ayaa wuxuu yidhi 3daa dareen buu kala hadla isagoo reerkooda doonaya inuu kiciyo oo ay si wax u dareemaan. isagoo dildilihii bishiiyo dacaydii haaneedii waa araggii oo wada dununucahayo idin dul joogaayo waa maqalkii yaa dambarkiisa waa idin uraa waana dabataa. waa 3dii dareenba. dhextaal baynu ku yara darsanaynaa markaa waan ku wareejinayaa aadan. isniina xamsa uu fadhiyaa nimanka ciyaadada ay waxay dhahdaan habeen isniineed jimcaale oo waxay ka dhigantay isniinta habeenimada oo ku jiraan. waxaan usoo araaranaya caawa masiixnimada weynala jooga u yeerayaa maxamed cabdi cabdilaahi qalin jacayl
hadduu fadhiyo hor asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa walaalkay iyo xamse maxamed jaamacna aad baan u salaamayaa hudhud allaha barakeeyo kulli sugaantiisii weli inoomu taabane wuxuu inoo taabteen wixii ay hal abuurada kale ka yidhaahdeen bal sayniskii sugaanta imika waxaan maqlayay eesaan aad u jeclaayoo ay wada qaadaan aamin cabdilaahi iyo cabdiqays oonse dadku wuxuu ku nool yahay neecawda weeye ma noolaada ruuxa iska taagta neefta marka laba maqnaataad sida dayaxa nuurta kale waxaa mara isaga iga sii cod macaanan lahaye maanso ugumaan talagelin laakiin mid yar baynay akhrinayaa maan jeclaynayna caawa ka dhex galo walaalkii xamse oo sugaantiisa dham inoo dambayso anigu mar baan sidii bal horta dareemada uu sheegay dee markaas sayniskumaan cabirayna berigii amgaras aan oomana ahaa imika dayla nin wiinoo odayaan hawad iga aragtana caaqil ahaye ayaa waxaan idhi anoo xeebtii fadhiya maxaan xiska kaa taboo xariiqay dhulkoo fekeray xasuusaha weedhihii xubbiga lagu quurin jiray maxay xalad igu fureen adaa xilliyada ad adag waayaha xakamayn jiray ilaa xidigtii tagtaay xulkii noloshaad ahayd anoo xiiqoo il daran adaa xoor caanadhay xaqiiqi u habi jiray xareer lagu naaxiyo adaa xila ii ahaa xanaanadii nolosha iyo xoobkii wadnahaad ahayd xabiibti waan kuu darsaday kunbaa xadre iyo kalgacal xarfaha ii soo qorqora quruxda waa xooralcayn markay xarragoonayaan aqoontana waa xad kale soomaalina waa xertii gayaan laga xolan jiro xor bay ka yihiin xumaan waxaa xiisa beel ka dhigay qalbigaa ka xijaaban oo halkaad xanibtaanay furin in had iyo goor markaad qof garanaysaa hadal si niyada ku tiraado waxa laga yaabaa inuu hawada furanto ilaahay ku aqbalo maalin baa la hadlayay sawjadeedaas waxay ku tiri aroos baan tegayaa anni yara hinaasiyaan waxa ku dibad xijaab ku tegay gaatara waxay ku tiri oo walaal ma geeri baan tegayaa naamay ma tegay sidee bal sidee ma kasoo waad kugu asturnaane ay naga badaa iska badaysi ana cag hore ku soo garaacay deetana hadalkooda yeesho waxay ku tuwan iska joogayaan waxaan idhi diintan kugu waaniyay waxyeenu nahay dhowro wardaay caashaqa ilaali walacka naga jacaylka dareen wadayaasha dhiiga fariimaha kuwa walwaala wadnihii isku xidha xiskayga garaadka wax sheegmadaydu sidii loo soo waxyooday aday ku wataan si gaara wallaahi aba yeeshay ilaahay uu yaaqbalo sawjadeena aad iyo aad walaalkii u mahadsan yahay idinkuna aad u mahadsantiin allah idin karaameeyo quruxda meeshu waa idinka goor hore u timaadeen ugana soo qayb gasheen waxaana idiin soo jeedinayaa in sidaa isaga qurux badan barnaamijyada goor hore aynu u nimaadno qodobka labaadna waxa weeyaan inaan idin ogeysiiyo barnaamijyo muhiima oo uu qaban doono naadiga akhriska iyo qoraalku uu kow ka yahay berbera book fair oo insha allah dhowaan inoo qabsoomi doona waxaa sidoo kale inoo soo socda barnaamijyo waaweyn weli maanaan taaban doodihii waxaad ogeysiinayaa inay dood weyn inagu soo socoto insha allah waqtigeeda idiin soo sheegi doono marka waxaa idin leeyahay aynu xagga aqoonta iyo akhriska iyo qoraalka iyo imaanshiyaha barnaamijyadaba la baraajayno gobollada kale inaynu ka sarreyno mooyaane iyaynaa ka hooseyn mabda-eenuna waxa weeyaan berbera inaynu ka dhigno isha aqoonta ee somalilan naadigana mabda-iisu waa kaas taasaanu ku shaqaynaya intaan anagu joogna insha allah idinkuna garbahaygii baadatiin mar koowaad iyo mar labaadna waa idin mahadnaqay waxaan ku xigsiinaynaa bal qaybaha kale ee barnaamijka aynu hore ugu soconnay waa dormancy period waynu ka baxnay characteristics of living industry laakiin waxaan galnay xaalad la yidhaahdo dormancy period form 3 lagu dhigaa baan jeclahay cashirkaas waa xaaladda madhoonyashada aanu shaygu waxba cunin waxaa jira suursanaan ay xayawaanka qaar galaan waxay ku qeexayaan what is the state of having normal physical function is suspended or slowed down for a period of time in a deep sleep muddo dheer bay hurdo gelayaan waxba cuni maayaan waxba cabi maayaan marka xaaladdaas waxaa loo yaqaanaa waa not active shaygaas laakiin waxaa laga yaabaa inuu mar dambe active noqdo noolahaas
sida waa aragteen baan u malaynayaa diinka iyo masiixadalayda iyo waxaasoo dhan xaaladaasay galaan oo dadka beeralayda ahi markay arkaan masiixadalay soo foorursatay mise faryaandilay la odhan jiray ayuunbay idhaahdaan gurigii baa soo dhowow saadaal roob baa muuqata deeto way ku xisaabtami jireen rabuna waxba ma cuno xilligaa abaarta oo dhan oo xaaladdaa dormancy periodkaa ku jira war imka xabad haruudha haddaad soo qaado oo istidhaa beer way beermaysaa soo maaha xabad ininiyaa haddaad soo qaado oo dhulka geliso way beermaysaa laakiin hadday halkaa taallo dee beermi mayso soo maaha ciiddan iyo biyahan iyo waxaanoo dhan baa active ka dhigaya kadib way biqlaysaa xaaladdaasoo loo yaqaanaa dormancy period waxaa tusaale noogu fiilan heesta uu sameeyey allah naxariistee cabdi iidaan faarax uu ku qaado codkiisa maxamed axmed gul diinkuna ma dhoonyado dareemada abaarto afka wuu u diidaa halku guri ku daaqee adna dooq yaab lehe sidii uu idin kaa daray daway adiga mooye dumar kale ma caashaqo waa wuxuu sheegayaa markaas sida diinkaas oo kale inuu jacaylkiisu yahay bal waxaanu gelaynaa ku xigsiinaynaa qaybta dhirta ka warramaysa markaa iyana matalan flowering plants ayaynu ku xigsiinaynaa intiina badani dee waa taqaanaan dhirtu laba shay bay ka kooban yihin waxaa loo yaqaano root system iyo shoot system oo af soomaali la yidhaahdo hab xiddo iyo hab xidid habkaa xiddo iyo habkaa xidid xididka hoose oo ruudkaahi shaquu qabtaa shaqada uu qabto ee uu inoo hayo ee scientific haddaynu sheegno waxa weeyaan the root holds the plant file in the ground si cad buu ugu hayaa xididku geedka dhulka biyaha iyo macdantana waxay sii maraan xididka dee nin la odhan jiray xuseen oo faarax dugbeed ayaa hees uu madhool u dhiibay wuxuu yidhi dhirta xididka hoosa dhulka loogu beeree way dhici lahaydee dhismahooda weeyaan miyaanu shaqadii ruudka inoo sheegayn waa root systemkii shaqadii uu qabanayay ayuu inooga warramay markaa way dhici lahayde dhismahooda weeyaan waxaan ku xigsiinaynaa tropismist aynu gelaynaa tropismku waxa weeyaan qalloocsan ama geedku uu dhinac u qalloocsamo sida scientifica marka laga warramay waxaa la idhaha waxaa jira 5 parties of tropism thigmotropism phototropism chemotropism hydrotropism noocyadaas waa ilaa 5 baa la gaadhsiiyaa markaa waxaan ka soo qaadanaynaa bal hal nooc thigmotropism waa habka waxaa la yidhaahdaa what is the directional growth movement which occurs as a machine sensory waa yahay pressure or vibration response to a touch stimuli matalan geed baa baxaya geedkaasi hadduu halkan ka baxo oo uu soo celiyo ba halkan yidhi hadduu soo celiyo waxaa laga yaabaa inuu weecdo taas macnaheedu waxa weeyaan waxa cariyey shaygan ay istaabteen oo waa thigmotropism waxaan tusaale inoogu filan hees uu qaado markaa axmed moodhe liibaan oo nin baa shawaraab cadda la yidhaha sameeyey wuxuu yidhi ninkaasi sida may aroori aad miiraale soo kacay meel mahigaan jilbaha dhigay dheerto ay madhoosho mankayo caleentii isku maydhacsoomeen
manka iyo caleentii isku maydhax soomeen waa tigmatropism positive ma diidin shaygan taabtay ee wuu raacay soo maaha haddii uu diidi lahaa wuxuu noqon lahaa tigmatropism negative oo uu ka weecan lahaa taabashada awgeed laakiin waa positive tigmatropism halkaa wuxuu ku sii daraya weliba competitionka dhirta oo uu leeyahay dhirtu way tartantaa dhirtu intaas shay ee aynu sheegna way u tartantaa hadday tahay nafaqada haddii ay tahay sunlightka ama iftiinka qoraxda ka imanaya waxaas oo dhan way u tartamaan dhirtu wuxuu ku sii daray markaa abwaanku dhulka muud ka soo baxay muranoo dhex yaallo anaka macaaniyo waxaan ahay masciideed hadal laysu mari karin dhirtu way murmaysaa anaa kaa macaan iyo anaa kaa macaan waa muus iyo dee tufaax murmaayoo kale halka waran uu ka hadliyey competitionkii dhirta ka dhexeeyey ayay inoo sheegaya waxaanu ku xigsiinaynaa pollinationka waxaa loo yaqaan ama faxlidda waxay ku macneeyaan what is the transfer of pollen from another plant to the stigma marka faxalka laga qaado faxal sidaha loona gudbiyo fur ubada qolada biology aad u taqaan baa garanaysa fur ubada loo gudbiyo habka noocaasa loo yaqaanaa pollination ama faxlid laba nooc oo faxlida oo ay dhirtu u faxashaa jira cross pollination iyo self pollination geed isagu isfaxlinaya oo isagun laga soo qaadayo dhabaqii oo la keenayo stigmi oo isagu halkaa ka biqlaya iyo geed kale u gudbinaya oo ay wax fudaydinayaan insectors ha noqdaan ama butterflies waxaa duulduulaya ha noqdaan ninaanu saaxiibna baa maranaya la yidhaahdo murtikoriya baa wuxuu tiriyey maanse la yidhaa ubax deetana wuxuu ka warramayaa deegaan qurux badan oo ubax ka soo baxay oo barwaaqa wuxuu yidhi ubaxuna aroor hore inta uu afkii furay shinni eeganaysaa manka urursanaysa waxay manka urursanaysaa ubaxan biqlay ee kala furmay ubaxuna aroor hore inta uu afkii furay shinni eeganaysaa manka urursanaysaa bal waxaan ku xigsinnaa physics benericulum waxaan soo qaadanaa revolution of light ilays noqota soo ma taqaanaan waxaa la yidhaha way ray of light approaches its most polished surface and the light ray bounces back iftiinkaa wuxuu ku dhacayaa meel isku siman dabeetana dib buu u noqonayaa shaygaas a loo yaqaanaa ilays noqod nin la odhan jiray ina xaashi dhamac gaariye ayaa inan ammaanay inantaas wuxuu ku ammaanayaa halkan ilays noqodka oo kale wuxuu yidhi ma habeen caddaahoo balliyada cigaagani casuumeen xidigahoo cirka dayixi kaa jiray dhulka kaa xawarayba haddee ma habeen caddaahoo balliyada cigaagani casuumeen xidigahoo cirka dayixi kaa jiray dhulka kaa xawarayba waa revolution of light caadiya waxaan ku daraynaa wax loo yaqaano spectrumka ama rainbowga in badan baa maqasheenoo rainbowga waxa weeyaan jeegaanta ama midabadan liidka leh ee hawada isku shareera marka xilliyada roobka waa physicska qayb ka mida wey oo lagu dhigto laydka macallin noo dhigi jiray biologyga aada heesa ah u soo qaadan jiray waxaa jirta markaa heesuu ay qaato allah u naxariistay khadra daahir cije oo uu midhaheeda iska leeyahay cali salaamid allah yarxam araaximiin oo taqaanaan dee tusaalaha meel fog ka dooni mayne heesta tidhahdo mataqaanaan sida laba isjeceloo laydhsanayo fiidkii waa heestaa
وحولي على كل كحيو إركو اللي دلي هاي سيدا لبا اسجعلو لا يرسنا يفيتي لا عدما يا عاشقة وروينا هي سنتين واي شجرات لنا هل يلبا أي تسوق عضلنا waxaan soo qaadanaa waxa loo yaqaano soil juqraafiga markay joogto waxa jira qaybo badan oo soilka loo qaybiyo clay soil silty soil ice soil ya oo kala duwan ciidda la yidhaha clay soilku waa ciid marka roobku ku da'o adkaata oo isu dhegta ciiddaas baynu bal tusaale u baadi doonaynaa suugaanta matalan hees uu sameeyey xasan xaji cabdillaahi xasan din oo la yidhaha dalsan baa jirta oo la yidhaahdo dalsan madhool iyo xasan aadan baa qaada madhool iyo xasan aadan baa qaada waxay odhanaysaa dhulka meesha didibta daadkii ku soo jabay dambaskii uu kala tegay iyo diradii xoolaha markaa carra didibtii ayuu halkaa xasan jane inoo sheegay waxaa jira mar kaloo uu ka warramayo waxaa loo yaqaano atmosphere temperatureka ama heerkul jibilka oo uu leeyahay mar habeenku dhaxan wadan dharaartiina kululayn dhexdhexaad hawadu tahay suitable temperature suitable temperature waa waxyaalaha deegaanka good climate-ka lagu doorto wey كل برنامج كنا أنت أصلاً بصور جبنا لكن ما سنقلنا إن شاء الله تام برنامج كهوشي ستبحين والله حنستودينا سودان وعلم يد اللفتين ما أهوح منكم هذا الدالوني مرة كاركون ما أهوح لاستتري qofka hal abuurka wax tirinaya waa qof wax ku tabcayo weey ama midhaha ku tabco mar insaan buu ilaalinaya mar erey buu xulanaya mar humaad iyo farshaxan buu ku sawiraya mar waa engineering oo ereyadiisa saarsaaraya taaskaa ka daa taasaa kaga habboon weersa la jambu ku jira suugaantu waa cilmi ee innagaan u aqoonin waxeen inay aqoon tahay aqoonta tay reer galbeed inoo soo waaridaan un maaha reer galbeed ee waatu ilaahay innaga inagu abuuray ee uu la yaabanaa ninkii la odhan jiray cali suule afqalaad aqoontu miyaa maya maya maahee ninba waa intuu eebadesha ayay nala tahay annagoonu odnahay aqoontu waa inta innaga inagu jirtee ma aha inta laynoo soo waaridayo oo qura inaynu wax qorno in aynu wax akhrino in aynu wax fahamno in aynu ka korno nidaamkan qabaliga ee laysku caayiyo ee hebel hebel saaxiibkii ka dhacayo maaha intaas waa iga dardaaran kolley guud baa soo socdaa mawduucanoo sidan ka faahfaahsan ka warramaya oo la yidhaahdo sayniskii suugaanta oo qori doono ninaan saaxiibno la yidhaahdo faysal cabdiwahaab faysal baydaan marka kaana waynu sugaynaa waynu wada akhrisan doonaa qolada unbaa injas yaro dhigtay inaan hordhacaa yar wax ka sii duubeen waa guud inoo soo socda insha allah waynu intaa ka sugayno maansadaan yaro gelaya بسم الله maansadan waxaa la yidhaahdaa riyadii sacaada dabayaaqadii bishii julaay 2022 baan tiriyey maalin baan anagoo berbera ka baxaynoo jabuuti ka soconaan markabka ku sii dhex dhigaysan jirnay heeso deetana anigii mid yar baa isku waardiyahayno aari noo shido heesahaasaan isu sii dhigaysan jirnay habeenkii maalintii tab sii socono tana waxaanu aada u dhegaysanay heesna aan saaxiibni sameeyo cabdirasaaq anta la yidhaa qamar qaado
oo jasiiradda dheemalooda ayaanu aada u dhiraysan deetna markaan Jabuuti tagnay baaban waxaan ku riyoodaa annagoo intaanu laash yar ka haysanay jasiiraddan Sacaada markaa aanaa guula fogeen Jabuuti joogna oo dad dhalinyaro wada faraxsano qoslayo qaar is jecelo dhar qurux badan xidhano roob baan ka qaadino meel joog kalaade dabeetana waxaan u bixiyey maansadan riyadii Sacaada waayo waa maansad riyaal istaay markaa wuxuu yidhi dhabtii riyadii Sacaada haddaan wax yar kaaga saafo waxaad la sureeriyaabe si fiican bal ii dhegayso waxaan u socdaalay maanta sintaa xeebaha waqooyi anoo ku sugnaa Jabuuti saxiimad waxaan ku aaday dhulkiyo geedaha Sacaadadu waa jasiirad ku taalla dhulkeenna suuba maaha jasiirad la raadinayo aan magaceeda la aqoon maatan yaa saxiimad waxaan ku aaday Sacaadadan markaa ku taalla dhulkeenna suuba yaa joogay meeshaas buu isweydiiyey markaa wuxuu yidhi waxaasa ku neef la joogay sindheer inamiyo gabdhee cabbaar goortaan salaamay anoo dhex socdo ordaaya waxaan indhahayga saaray dhirtii u bixiya sitaaca markaan saytuunkii dheehday gobbaa sida saar u loohan waa dhir isjeshay oo qurux badan oo jawi fiican yaa dhibcaha sadalkaa ku hoora dadkaa samarkii yimaada meesha oo meel u maaragta dhibcaha sadalkaa ku hoora dadkaa samarkii yimaada siyaaqadda way xidhaane haye habluhu saddex qayd casuus leh dhacdaha loo soohay baarka ayay ku tagaan Sacaada kabuhu waa saan xariira subeeciyad waa hagoogta hidaha dhaqankeenna suuban ciyaar heerkeed sarreeyo ciyaarihii waaweyn ahaayee bismillaah salala calaayeho yaale waxaasaa meesha laga tuma ciyaar heerkeed sarreeyo midhaha saylici ka beeran hoyaale saleecaleedha cishqigii muliyaad ku saabsan ayay ka tumaan Sacaada dadka meeshaa jooga ayay ka tumaan Sacaada sacabku waa kii mushtayd Faysal Cumar mushtayd sacabka uu tumo kelidii boqol Soomaaliya ma tumi jirin ma maqasheen Faysal Cumar mushtayd macallinkii weynaa sacabku waa kii mushtayd cod iyo jiibtaysa saaran durbaanka sardooyinta raaca heesaha subcis iyo qaraamka ka xeel sandhigii aroore nafay ku sabaan hadraaya jacayl sandhigoo hanuunsan heesahan waa laysku sabaayo naftaa lagu maaweeliyaa bulley haye meeshaasuu soo gebagabeeyey farxadda jawigaas sameeya farxad kastoo aynu u baahannahay jawigaa inoo sameeyay soo ma taqaanaa markaad meel qurux badan joogto markaad dad qurux badan la joogto markaad meel bilaabuuqa joogto jawigaagu waa kaalay arag haddaan lagaa dasin farxadda jawigaas sameeya allaha sugayaa ilaasha dadkuna saab weeye dhowra ilaahay baa ilaaliya meeshaa farxaddeeda iyo jawigeeda dadkuna waa ilaaliya maasadaas markaas sidaasay ahayd waxaa la odhan jiray riyadii Sacaada intaa uu magayaa iska maqnaadee maase kaa idin raacinaya waxaa la yidhaha tasbiix way jaabantay waa loo baydoo mid fanaana u dhiibo soo saariyo dhowaan insha allah tasbiix baa la yidhaha tasbiixdu waxa weeyaan subxaana allah alxamdulilah ya heestii bay ka isku mid noqdeen aniga maahe bal waxaan isku dayay dad jacayl helay oo jacaylkoodii la ildaran oo waayay sidee loo dabiibaa dee tasbiixsadan ama kala garan maayo ilaahay ka boqo iska tasbiixso taasaa alaa lagu qaatiyo wuxuu yidhi waxaan la tacaalayaa qulubta hoos iyo bukaan jacayl kaga raadtago waxaanu tufaa qur-aan tahliil iyo balaxijaab waxaan kula talinayaa hatabin caashaqa lu go-ay ka tira maanka iyo qalbiga tasbiixda ku maareerow tacsida noloshayda laab
waxaad shidataa tirin tilmaan iyo muuqlaho waxaad nacabkii tustaa tanaad iyo nolol habboon waxaad tirtirtaa dhammaan taswiirtiiyo buudhadhii si aad tahan iyo xasuus tabaallo wuxuu ku baday u dhaafto tubtiisa baas waxaad ku muddaa tallaal tiftaafyada dhiidha oo waxaad turuqdaa wadnaa halkuu ku tuntunsadee naxliga u dhaxantiisu taal waa dhaxtaalkii markaa intii yarad heesta soo noqon jirtay waxaad shidataa tirin tilmaan iyo muuqlaho waxaad nacabkii tustaa tanaad iyo nolol habboon asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan u malaynayaa sidaan ula haystay ee madaxa u warwareejinayo baa la adigina ku soo dhawow baan jeclay runtii in layga dhex galo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xamse maxamed jaamac oo saaxiibkaya oo 4 sannadood heerkii jaamacadda gaar ahaan kuliyaddii berigi dhowdaan ka qalin jabinay jaamacadda culuumta badda ee nautical science ama maritime transportation and technology aanu in badan runtii isku kursi yahay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo xafladdan maamuuska iyo karaamada leh ka soo shaqaysay gaar ahaan naadiga akhriska iyo qoraalka oo runtii ah tiirarka aynu dheernahay gobollada kale ee jamhuuriyadda somalilan waxaan aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha xafladdan ee dhallinyarada kala duwan ee hablaha iyo namada leh waxaan ku soo afmeerayaa uun waxa la yidhi siduuha soo xidhi doona oo de marka lagu dhaho wixii waa la soo xidhayaa dee nin qafil la soo kacay un xaalkiisa waad garanaysaa nin de wax furaya runtii maaha xamse maxamed jaamac caawa waxaan islahaa haweenuudu geynayaa aad baan ugu mahadnaqaynaa inuu yidhi habeenada dambe aynu hawada tegi doonaa iyo xidigiska oo caawa dhulka iyo walwalka iyo jacaylka waxaan u malaynayaa dad badan oo dareemayaal badan oo qaadhay naftooda ay ku jireen inay caawa kaakiciyeen waxaan se uga mahadnaqaya inuu xamse yidhi tasbiixsada oo waxaan islahaa de isagoo jacaylkiida ku kiciyay buu idinka tegayaa hadduu dawadiina inoo raaciyo yidhi waa inta tasbiixstaan ilaahay ka yaabo dee haddaa yaabtaana qol hoosta ka xidha waa qayb dawada ka mid ah xamse maxamed jaamac waxyaabo badan markii hore isagoo de berriga inala jooga ayuu annaga wuxuu nagaga nasiib badnaa inuu baddana galay oo ka mid ahaa ardaydayadii annagoo jaamacadda wadna maraakiibta raacay annagoo kalluunka aan wax badan ka aqoon ayuu xamse noo soo noqday isagoo kalluunku say isu dhalo sheegaya war bini aadamku si isu dhalayadeennu ayaa hawla nagu qaadatae kalluunkiina ma wada habeenkii dib wuxuu noogu xigsiiyey annagoo iska shaahayna oo nin waliba fujaa dheer la jeedo maxamed qalin jacayl iyo isaga iyo ninkan odayga ayuu yidhi waxaan hayaa riyadii sacaada waxaan idhi dee bal waayahay tiri waynu eegi doonaa riyadii sacaadana riyooyin badan waanu haynay bal riyooyinka kale waxay kaga duwantay tan sacaadina noo tiri aad baan ugu faraxsanay inaan ka mid ahaa shaandhadii la mariyey heestan riyadii sacaada oo inoo dooray xamse maxamed jaamac waxaan u malanaya riyooyin kaloo badanna way ku qaarsan yihiine inuu inoo soo xigsiiyo waxaan u malanayaa dhallinyaradan kala duwanna dee nin walba waxbaa ku qaarsan riyadda iyo qaar baa realitiga laftoodii ku taagay anigaygana aan ka mid ahay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa idinka mahadnaqayaa xamse hawl baan ka werwersanaayo dhammaantood jig noqon lahaydoo wuxuu aad u yaqaanaa cilmiga xidigiska markaanu dhulka hoostiisa iyo korkiisa aanu nidhaahno annagaa kugu dhaana ayuu dhahdaa faraara iyo maxay cirjiin iyo kan iyo saanaana waa basigo inta dhulka iyo hoostiisa iyo dushiisa aan isla joogno waayo markay xagga sare u baxdo isagunbaa runtiina loogu qaatay waana cilmiyada runtii aadka inooga yar xamse waxaan leeyahay runtii waxaan dareemaya in waktigu inagu koobnaa inaguna aad baynu u samirnay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa runtii dadku way aamuseen maanaan caajinin faleenbadaan nagu socotay marka waxaan rajaynaynaa inaynu insha allah bismillahi kariim aynu halkaa kasii wadan doono waana waxaan kaloo aynu qaadanaynaa fariintiina adiga akhriskiiyo qoraalka guddoomiyihii noo soo jeediyey aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu